waxay ka qabto waa kan Sheekh Maxamed Cumar Dirir. qofka muslimka dhiigiisu waa xaraan maalkiisu sidoo xaraamta u yahay inaad ka qayb qaadato dilka qofka muslimka ah adigoo soo shiraya ama adigoo qoraal ku sameynaya ama adigoo qowl kaga qayb qaadanaya ama adigoo ficil ku fulinaya intuba waa xaraam waana dambi weyn cuqubada ku dhacaysa qofka qof muslima xaq darro ku dilana quraanka ilaahay uu ku sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku ku sheegay دليل آد بدن باكسو أروري ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما شنطة الرموت با إلهوية وهي قفك قردراء الدله قفك مؤمن قفك قردراء الدله فجزاؤه جهنم نار جهنم الله يراد إلهي وكو أبال مرينيا غضب على علصنا دشو كساري نعذلنا وكتوري عذاب كلنا والدياري intaasaa ilaahay u israaciyo naartaana uu ku waarayaa buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa ay asxaabta qaarkood ku tageen sida ibnu cabbaas oo kale towbadba ma lahaba qofka muslimka ah buu nabigu calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu lmu'minu fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraaman calaa macna alxadiid qofku nafis buu ku sugan yahay iyo waasac iyo raaxo intaanu dhiig muslin faraha la gelin mar alla marka uu dhiig muslin faraha saaro ee uu gacanta saaro oo qowl iyo ficil midun kaga qayb qaato markaas babiso loo tuuraya markaas cirkiga dhulkuba ay cidhiidhi ku noqonayaan oo dhagar qabe ayuu noqonayaa mid godab xambaarsan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay maalinta qiyaame marka la isu yimaado faylka u horeeya la furaya ama waxa u horeeya adoomaha la xisaabinaya waa dhiiga oo qofkii la dilay baa isa soo taagaya hebel baa dilay ama hebeladana ay dilay bal waxa igu dileen ilaahay oo weydii arrintaasi arrin aad u adag weey waa dulmi waa xaq darro diiqad adduunyo iyo mid aakhiro iyo adduunyo la'aan iyo aakhiro la'aan ayaa qofkaasi xaaladiisu ay ku ururaysaa arrin ummadeennu ay fudaydsato weeye laakiin ayaan darro weyn oo ay eedi doonaan weeye ilaahayna addoonku inuu uga toobad keeno oo qofka muslimka aan qabyaalad lagu dilin oon kooxaysi lagu dilin oon manfaco iyo maal la doonayo lagu dilin layska nabadgeliya addoommaha ilaahay halkaasaa cuqubadaas waa cuqubadii aakhiro cuqubada adduunyaduna waxa weeye qofkan intoo la soo qabto in gacanta loo geliyo qofkan xaqdarrada lagu dilay xigtadiisii waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaanan falaa yusrif fi lqatli innahu kaana mansuuran ilaahay baa wuxuu uhi qofka xaqdarra lagu dilay xigtadiisii waxa aan siiyey awooddaana nabigaa fasiray calayhi salaatu wasalaam kii wax dilay waa in gacanta loo geliyo la yidhaahdo haddaad doontaan waa cafii kartaan haddaad doontaan waa qisaasan kartaan haddaad doontaanna mag baa ka qaadan kartaan qofka wax dilay waa in gacanta loo geliyaa ciddii kaa la dilay ehelkiisa ahayd haddii la dambabaso oo la qariyo oo la tahriibiyana kuwa kalena way kula jiraan wallahu aclam